aabahayaa wacaa taasoo lagu qalbahaa cunugaaneeti ani intaa joogaa qurbaa joogaa 200 inaa wax taraynin ani afrika ma jooga dadka dhan way ogyihiin maanti gurigiisa iyo wixiisa bixinooyo toosa cunugaaneet biilka soo dhiyeysaa ama ma sheeganaysid dhagaha si fiican u fur 200 maalinta bariya maalinta lacagta lagu soo diray waxtaa wala jira ku soo noqonaysaa ma ku baahan 200 ma kaaga baahna hadaa lacagtiisa toos soo dhiibeen ma sheeganaysid asna bari ma ku sheeganay noocaado kale fucking wixiis iska soo bixi ina halka haddana maalinta waa kana oo liisoo qoraya lacag ku taala oo bari ku soo noqonaysaa ha ka cabsanin hadaa lacagtiisa soo dhameystir weyse bisha koo waay bari hadaa lacagtiisa soo dhameystir weyse bes waay markaas seete hooyada aabahaga waca lacagta ma soo dhameystira ma soo dira mise cunugaaneed ma sheeganaysid ma fahanti ammaanka balaarna siinaysaa inaa ku nooga ku daalaayo imaal ku dhafro yaa fartaa dabad kugu jirto ana dhaay ma soo dheeyst balan waay waana ku soo cadeynaa banaanka hadaa mark soo dhiiweysa inaa soo fadhiista waxa dhaha ma dhalin ninkaas biilna ma sii waxna ma siiyo ammaanka balaarna markaa hadaa soo dhigit xataa ma san hadaa ku qortaa sankaaga ma ahan sanka ka jabay adi hadaa sheegaysay waxaad u dir hadaartid bariya ma ahan tan maanta diid ma aragti waxa cunugan kugu leeyahay inaad dhiibtid maanta sa arkaysaa toos ma aragti dadku jiiqa ugu qarnaysaa toos wicilnimada ma aragti khaniisnimada kulli banaanka soo bandhiga maalinta diidid cunugaaneeti yaa inaa biilkiisa soo siisid bishaana maalinta diidid social media ka dhex arkaysaa balon waay ma diidino lacagtiis ma soo diris maahno okay ma diidino okay waay waa arkaysaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته meel walba caalamka ay ka joogaan Soomaali weyn soo dhawaada waxaan jeclahay gabadha walaasheena ah hadalka ay soo jeedisay inaan wax yar ka iraahdo oo weliba dhinaceyga iyo ra'yigeyga aan ka hadlo insha Allah Soomaali waa Soomaali hooyooyinka dhan waa Soomaali waa dad walaalo ah insha Allah marka waxaan jeclahay inaan xoogaa ka taabto marka gabadhan sidii ay u hadashay waxay eedeynaysaa wiilkan oo hadda oo macnaa wiilka ay u dhashay iyo afaarihii labadooda dhexyiilay gabadhan waxay u egtahay xoogaa gabar macnaa meelo badan laga haysto oo xoogaa isku buuqsan insha Allah waxaan rajaynaynaa in macnaa dadkan walaalaha Soomaaliyeedna inay macnaa waanada ugu dadaalaan oo laga joojiyo isku dirka hadalka badan oo la wareejinayo iyo qof walba inay in gaar ah ay ku darsato oo gabadhana meeshaas waxaa kaaga cadaanaysa inay iidan hore usii kacdo oo macnaa wax ay noqoto qof macnaa oo buuqa kusoo siyaadayo insha Allah iyada iyo ninkeeda horta wixii ka dhaxeeya oo afaare ah oo nolosheeda ku saabsan horta waxaan la yaabay inay soo dhex dhigto social media waa laga fiican yahay social media in lagu sii waalmo ugu maahine wax ku dajinaya kama helaysid aad ugu kacsantahay koo waxaa la dhahaa hadal wuxuu ammaan yahay inta aadan oran mar hadaa macnaa waxaa rabto ku hadashid oo banaanka soo dhigtid oo ninkaaga xumaantiisa iyo wixii idin dhexmaray aad soo qaado soo shaac bixiso waxa waaye waa isku dhamaatay sheekada wax walba lagu sameeyo filo ninkaas hadduu kuu fiicnaan horta ninka iyo naagta waa isfuraan way kala tagaan dadku waa isjeclaadaan haddana waa la kala tagaa wax weyn maaha marka adi inaad afaarahaaga qaaska ku ah oo social media aad la soo fadhiisatid waxay tahay ma aqaan baahida heerkaas gaarta ee maanta aad ku dacwoonayso bulshaweynta social media aad soo dhex dhigaysa saanu u yeel Soomaali weyn maxay kuu qabanay waxay ku qabanayso malaha Soomaali nin walba dhibkaaga adig ku haysto iyo ka weyn haysto haddana waa la fadhiyaa waa la aamusan yahay maahan inaa adig wacnaa waxyaalaha adig ku qaaska oo gudahaaga ah inaad soo bandhigtid si aad ku hesho share iyo like waxaas waa laga fiican yahay waana ceeb waa nolol meel xun kaa gasho waay haye daraatool adii walaashaada is haysateen iyadii walaasheeda is haysteen waatay iidan adnada ooynaysay dhehaysa ani ma aha problemka dhinac ninkeeda waay sheekada markii aan gadaal u raacin waa wixii waaba wax iska cad marka gabadhan walaasheeno iyadaa iswaaleyso maadaama iyada problemkii ninkeeda uu ka badbatay
waxaa fiican 2 gabdhood 3 gabdhood oo Soomaali ka mid ah inay gooni macnaa luuq ay u gasho oo la soo sheekaysato oo hadday ka akhri fiican yihiin ama ra'yi ahaan iyo waxay sii karaan ay soo siiyaan oo idan ay ku dhaqaaqdo laakiin ma aha in macnaa social media ay timaado oo waxay doonto ka hadasho asagana uu intaas ma sii maqlo uu ka sii caroodo صح horta sideenaba Soomaali haddaan nahay in wiilasheena ilmaha aan dhalno aabooyinka 9% way dayacaan aabo fiican oo ilmihiis daba taagan oo bil siiyo oo ka warqaban wuu jiraa laakiin 9% waxaan u badannahay in macna raggeena intay ku dhalaan way ka cararaan meel kale ku sii dhalaan way ka cararaan laakiin ilmahaas macnaa waxay ka dhiman laayihiin waa dhinaca hooyada hooyo sideeda mar walba waa hooyo naxariis inay leedahay ilaahay quraankiisa ku sheegay inay mar walba aabaha ka horeyso hooyo ilaahay quraankiisa ku sheegay marka ina cunugaaga aad u naxdidood qabsatid oo aad korsatid si nadiif ah oo qarsoodi ah inaad noloshaada ku dhameysato aniga macnaa ra'yigayga ila fiicneed laakiin inaad baxdid oo nin islaameed oo kala tagteen inaad soo qaadatid maanta social media aad keentid oo wuxuu kugu sameeyay baad sheegto taas waxa meesha haddana kaaga sii dhalanayo kalgaceelkii shalay oo wiilkiisa naxariista uu qabay ama sida biil uu siinayo oo kale inuu macnaha dhow adana meesha uu kasii bixiyo oo canaad iyo wuxuu bilaabo rikaato inuu adigu ku rikaateeyo maadaama aad social media soo dhigtay oo dacaydaysi inuu asagana kibir ka sii qaado oo hore u sii darsado oo lacagtii biilkii iyo wixii uu kugu sii qashqashaado aniga waxaan ku dhihi lahaa alxamdulilah haddii marba biil lagugu siiyo alxamdulilah 7 cunug 5 cunug hooyooyin hayaan oo ilaa iyo hadda aabaha meelu saamta uu dhig oo la ogeyn anaga naqaana oo waxna ay ku haysan biil iska dhaafe marka 200 hadduu ku siiyo maasha Allah tabaarakallah waxaan ku leenahay Allah kuu barakee inta kale adiga jafjafo ishabee waxay isku toosno noloshaada burso adi noloshiis ka bax ha guursado ama iska dhaaf haddana waxaan jeclahay inaa xoogaa yaro cod iyada ay soo gelisay inaa haddana idiin soo gudbo oo ku eedeynayso ninka wuu guursanayaa maxaa kaa gala hadduu guursanaa koleyba adig kuma sugaya asaga waa kala tagteen khalaas والله بلا وقجرة حتى هاد دب قراعة في ويلك أمير أبيهيسا عاو جور كلا بو أروس كل جرا هاي أمبا لرفاقي لو قف ربلاي اسكو قالين ربلاي قاعد يدفعوا هاد لا حتى فيري وحس مهم معها لكن شركات أنا كوك بلاوي هو عندها مركز أساس مركي أرنت مريس لو بري أو مخناي كويس توقع عليه وحده عاو أنتو بحي مقيني هاي الإنترنت مالها مية عادي حتى ووعي بحيس مش قينا نبركيس محاكو دعاي إلى أنا ما بأجيبه وعمال أو مهر كدعاية مهر دعاية والله بما إذا شيء جاي أقول أنا ما بفكرين وحسيتي وحكي لك بفكرين يعني واحد قطشني وحد قطشني إن أنا كلا جرا صح أنا مقطشني إنه حاسب وسمينا بقاس واحد إسدها هذا اللي أويل أو عرض وحاسب وسمينا إسدها وكل صونة مركب واحد إسدها سبر كيسة سبر كيجا لو براسه مخيني هاي وأنا آية بنها سبر كيجا سبر كاسيم سبر كيسة واحد أديك تيك توك يعني هاس أو يعني أو جعلي وحاس على أساس صاري نمبر هذا يا صواع نمبر هذا يا صواع ما قاعد يدخل ويا والله بيم إيدي شيء وأنا درنتها ما يقدر تيك توك يقدر هرت ساعتها ما في عنتها والله بيني شيء إنه هذا ساعتها هرت ما في حدا محقوق دعيات ما حدا جينا ده تيك توك سيبرك أصور هرت فيديو أصلا تلت ده إلى واب مال نكح دعاية بو يا أي بطول عدة وحلو شيء إنه ما عرفت أنا أو إخوين xalay waa soo dhageysateen walaashaan Soomaaliyeed hooyo Soomaaliyeed waxa ay ku hadlayso iyo waxay sheegayso ninka hadduu guursanba adiga wax ma ka gelin qasab waay waa uu guursanaa afaraan u banaan adiga had maanta waa lagu xureeybo qof la furiyaa tahay marka walaalay macaani anaga waxaan ku dhihi lahaa insha Allah inaad waxyaalahaas iyo afaarahaaga iyo inaad publicada aad ka deysid oo xoogaa sheekadaada adiga qarsoodi ku ahaato walaa adiga iyo walaashaada walaa adiga iyo ninkaaga waxyaalahaas camal waa laga fiican yahay soo dhigeysiin social media macna sheekada oo ku sii qarxee xumaanta waa sii badane oqdada ninka uu ka qaadayo uu sii badana adiga marka hadal soo dhigto asagana hadal uu soo dhiga ilaa af iscaay isma amaano waxa rabtaa sheegta asagana wuxuu rabo soo sheega marka saas darteed waxaa ka fiican in la kala gaabsado oo xoogaa waxyaalaha adiga markaas oo noloshaada oo u baahan tahay inaad ka hadashidna dad adiga ku qaas oo ama ehelkaaga ama saaxiibtaada asxaabtaada aad goon ugu baxdid
aad la sheekeysatid secret inay ku ahaataa fiican maadaama ood macnaa ninka waxaad isku dhashay ninka daduu leeyahay asagana wuu xanaagaa adigana sidoo kale dadaa leedahay hadii lagu caayo waa xanaagee marka meesha waxaan umaleynaba ani olol naaqshidoosinbo maxaa dhacayna adi iyo walaashaada maskaxdaada dadka ka kasheene xaraam waay waxyaalaha aad sameynaysiin fawt waay qalad waay waxaad sameynaysiin insha allah asxaabay saasaa idin dhihi lahay aan dhihi lahay gabadhan hooyo Soomaaliyeed inay macnaha meelaha qaar waxyaalaha ay soo dhigayso ee iska dayso oo waxeeda secret ay ka dhigato insha allah problemkeeda iyada ee sir ku xaliso insha allah welcome to Farxiyo Channel adaa macnaa walaashay aad ka xumaatay hadalkayga iwaanadeena insha allah waxaan jeclahay marna waxaa dhehe waa u ifuri marna waxaa dhehaysaa naaga uu ila guursanayaa sheekooyinkaas dhan oo isdhaafdhaafka ee looma baahna wuxuu kasii ka qaado danahaaga gaarka ee ka ful cunugaas yar inaa korsatida muhiimada ee tahay waxaa wuxuu kusii aad ku qanacdid balaa oo meelay u socota aan la fahmaynin kolay aniga kula talinay haddii laakiin aad macno kale aad ka wadato oo rabtid inaa macnaa youtube aad ku kala kacsatidna okay waaye taasna idin macnaa sheeko kale waaye insha allah laakiin ra'yi ahaantay waxaan ku dhihi lahay inaa isgaabi sidaa fiican isgaabi insha allah barbaleenkaaga iyo macnaa iyo hoolaha adi ku qaaska ahna secreta ku ahaadaan insha allah adi iyo walaashaadaba insha allah haddaa ka xumaata hadalkaygana soomaalinimo iyo hooynimo u hadli sorry aan ku leeyahay raali iga ahaa marka asxaabey soo dhow